waxaa maanta galinkii dambe magaalada Jowhar soo gaaray wafdi oo horkacayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya Muuse Waxgarad Cabdullaahi waxaana si diiran magaalada ugu soo dhaweeyay guddoonka baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle soo dhaweyn kadib waxaa wafdiga loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka Hirshabelle halkaas oo ay kulan ay ku wada qaateen guddoonka baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle iyo wafdiga xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya kadib markii uu kulanka soo gabagaboobay waxaa wareysi gaar ah telefishinka bulsho siiyay Muuse Waxgarad Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya kulanka maanta wuxuu ahay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka oo aniga aan ka ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa safar ku yimid caasimadda Hirshabelle Jowhar safarkaas oo ku saabsanaa inaan la tashiyo iyo wacyigelin ka sameeyno arrimaha xuduudaha iyo federaalka ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle oo la hadlay telefishinka bulsho ayaa sheegay in si diiran wafdiga Jowhar ugu soo dhaweynayaan isla markaasina kulamo gaargaar ay yeelan doonaan si looga hadlo arrimaha xuduudaha oo maalmihii dambe dibadbaxyo looga soo horjeedo go'aanka dowladda federaalka ka soo yeeray ee ku aadan garoonka Cisiley iyo dekedo ka mid ah maamulka Hirshabelle ka dhacayn magaalada Jowhar aad muxuu ahaa inaan soo dhaweeyno waan ku faraxsanahay inay yimaadaan aad ayaan u faraxsanahay inay workshopkaas qabtaan oo bulshada cilmiga ku sharaxaan federalismka maadaama ay Hirshabelle tahay dowlad goboleedka xubinka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed marka guddiga aad ay mahadsan yihiin waxaan leenahay soo dhawaada shaqadiina qabsada waxa kale oo ay noo sheegeen in ay wax kale badan si gaar ah u hadli doonaan Ilaahay yiraahdo oo ku saabsan federalismka iyo xogwaraysi badan in la kala yeelan doono insha Allah safarkan ay ku yimaadeen guddiga xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya magaalada Jowhar ayaa waxa uu salka ku hayaa hadal maalmihii dambe ka dhex guuxayay xarunta madaxtooyada ee maamulka Hirshabelle kaasi oo ku aadanaa arrimaha xuduudaha dowladda goboleedka Hirshabelle iyo garoomo ay leeyihiin dowladdu oo isla markaasina dowladda federaalka ay sheegtay in looga arimin doono gobolka Banaadir Cabdifataax Axmed Maclow Cabdifataax Zaki Bulsho TV Jowhar